malena faydiye markan urta hooyaday ifka uga soo baxay anigoo nafac baran nacawdiisa udugale kiigu anqariyo aligaygo ifka uga soo baxay anigoo nafac baran nacawdiisa udugale kiigu anqariyo aligaygo inanku adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oosha axdi kuugu maraya aligaygo nikasaka ordeeka abaaldhace addoonsiga la tegi soo mooga hona soo mooga addoonsiga la tegi soo mooga hona soo mooga noloshiisa oo idin soo mooga waxay ku ambaqaadaba soo mooga oontaadi ina tahay soo mooga noloshiisa oo idin soo mooga waxay ku ambaqaadaba soo mooga oontaadi ina tahay soo mooga ablooga hadiyaa tahay soo mooga jaxalan waaweyna tahay soo mooga isagu inuu ku leeyahay soo mooga xafladdu waxay kaga duwan tahay haddii aan idinla kaftamo xafladihii hore waxaa hogaaminaya guud ahaanba saxaafadii Soomaaliyeed marka waxaan dhextaal idinka dhigaynay xogag aad u baahan tihiin inaad ogaataan November 22 sanadka 2010 Ra'iisul Wasaare Farmaajo wuxuu ka dhawaajiyay arrin dadka Soomaaliyeed ididiilo iyo wadan jacayl intaba ku beertay waa markii uu yiri 100 maalmood hana loo qabto arrintaas waxay noqotay mid qaramada midoobay laga soo dhaweeyay mid guud ahaan caalamka oo dhan laga soo dhaweeyay waxayna muujiyeen runtii sida saxaafadda gudaha iyo dibadda qirtay wax qabad aad u wanaagsan waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka aanu yeedho xogayaha xisbiga tayo isla markaana ah ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya noolato Soomaaliya hamidoodo nafrisiye marka bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan halkan mahad iska leh Allahii suurtageliyay inaan halkan isugu imaano caawa marka labaadna dhalinyarada soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan oo sidoo Xasan u sheegay 1500 dad gaaraya halkan suurta gashay inay isugu yimaadaan waa mahadsan yihiin waxa kaloo mahad iska leh fanaaniinta oo halkan naga siisay entertainmentiga Nakroma iyo Dalays iyo Umar hatirme xumuhu hatirme wanagu hatirme xumuhu hatirme wanagu hatirme wadada toosan raaca hatirme tariiqa bahar raaca hatirme xisbiga tayar raaca waa mahadsan tahay runtii markaad fiiriso fanaaniinta waxaan is iraahdaa da'da ma wakartaba marka qofkii da'da la dagaalayo waa inuu joon gareeyo ama ku biiro
ما شاء الله waxaad moodaa inay saacad da'da iska damiyaan ama waa inay ka halawdayba marka waxa kaloo runtii mahad leh dadweynaha sharafta badan oo halkan caaw isugu yimid oo hawla muhiim ah iyo guriyihiinii iyo caruurtiinii aad uga timaadeen si xafladan aad nagala soo qayb gashaan ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo waxay kamid tahay qaybaha looga baahan yahay qofka halgamaaga ah inuu maro maxaa yeelay waana looga soo horeeyay hawshan dad badan baa dhiig ku baxshay dad badan baa xabsiyo u galay oo SYH ah in la helo 30 sano oo barwaaqa ah iyo magacii ummadda Soomaaliyeed sharafkoodii in kor loo dhigo marka waxay ka tahay dadaalka aad sameysaan caawa qayb halgankaas oo kala ah caawa nin iga nasiib badan ma laha hooyaday waa joogtaa Mariin Xasan ما شاء الله oo kamid ahayd halgamiyaashii hore ee SYH iyo sodogtay abshiro aadan bishaare aadan iyo xaaskayga halkan la fadhida oo garabkayga ah iyo kulli ciidamadii sharafta lahaa journalistka iyo korneeladii oo caawa halkan nala jooga iyo gabdhaha quruxda badan ee Soomaaliyeed oo waligood Allahood qayb weyn ka ah halkan kasta oo dalka soo mara waa mahadsantiin kulligiin ما شاء الله iyo bahweynta saxaafadda ciyaartooyda waa ilo raaliga ahaada baashi waxaan isku aragnay last isbuuci hadda la soo dhaafay waxaan isku aragnay magaalada Columbus marka hadal aan iloobayna yiraahdeen oo loo baahan yahay runtii in wax laga barto hadalkaas wuxuu ahaa nin Morgan la yiraahdo istaagay oo ciyaartooydii hore ahaa wuxuu yiri marka aan qabiilkayga la weydiiyo waxaan yiraahdaa waxaan ahay beesha ciyaartooyda ما شاء الله marka ana ku daru yiri waxaan yiraahdaa waxaan ahay lafta ama jilibka kubadda cagta marka aniga soo boodo waxaan ahay naftigay waxaan ahay jilibka garsoorayaasha waxaan ka nahay Bounty 5 marka Allah iyagu kala naga dhigo maxaa yeelay waa dad isu tagay bulsho ah oo aan qabyaalad isugu imaan sida fanaaniinta kale runtii iyaga naftigooda da'da ma karto marka waxaan isleeyahay qabyaalada ka fog caawa halkan waxaan isugu nimid runtii oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay xisbigan tayo soo dhaweynteeda ee magaaladan weyn ee Soomaalidu degan yihiin runtii dad badan baa waxay lahaayeen maxaad soo booqan weyday magaaladan weyn oo jaaliyada xoog leh ay degan yihiin oo gaari karta ilaa 70,000 150 maal gaar had waa double maxaa yeelay maalin buu ciyaal baa la dhalaa marka kuwaas xisaabta lagu darin marka runtii waxaan dib isugu dhigay tan oo kala caaw maxaa yeelay waxaan lahaa munaasabad fiican oo adoo macnaha waxa rabta yaqaana u tag jaaliyadii Soomaaliyeed ee reer Toronto oo tayada lahayd caawana runtii si sharaf leh oo wanaagsan oo farxad leh yaad noo soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo kullayba waxay la tahay hawsha halkaan ku bilaabatay inkastoo Minneapolis ay ka soo bilaabatay laakiin runtii tan waxay ahayd tii labaad tii saddexaad aan yiraahdo raaliga ahaada waa khaldamay tii labaad waxay ahayd Bristol tii saddexaad oo si qiimo leh oo weyn nolo soo dhaweeyo oo waliba nagelisa yidadiilo weyn waa mahadsantiin walaalayaal ما شاء الله waxa aan kulligeen isu sheegnaa cudurka jira Soomaaliya waa naqana cudurka jira markuu qofka dhakhtar tago oo uu dhakhtarka u sheego cudurku qabo wuxuu u qoraa daawada cudurkaas daaweyn lahayd
runtii annaga waa naqaanaa cudurka nahaya waa cudur jahli ah oo qadiimi ah oo lagu magacaabo qabyaalad maxaa yeelay haddaad maqasho qabyaalad waa jahli wax kale ma aha waana sababihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummadiisa loogu soo diray markii dadkii uu dhex deganaa ay everest kaga dhigeen qabyaalad diintii waxay noqotay daawadii qabyaalad lagu daaweyn lahaa waxaana laga joogaa 1400 sano hadda weli annaga la xanuunsan waxaan rabnaa dhaqankaas oo aan ku jirnay oo aan maxaan ku raahdaa awooyaasheen ay ku jireen ay isku dhaqi jireen 1000 sano oo qadiimka ah inaan wadno oo aan ku wadno qarniga 21aad marka dhaqan baadiyo oo tuula ah iyo maxaan ku raahdaa nidaam 21st century ama qarniga 21aad oo halkan ah Toronto ah ama Westernka ah isma geli karaan maxaa yeelay culture-kaasi meel buu ku fiicnaa meeshuu ku fiicnaa waxay meel aan dawlad jirin meel maxaan ku raahdaa loo isticmaalo sidii insurance oo kale ah tuuladaas ku kooban aan tuuladaas u gudbi karin tuulo kale laakiin hadda adduunku waa isku furmay marka casrigaas jaahiliga ah kuma dhaqmi karno dhaqankii jiray waqtiga hadda lagu jiro marka laba choice yaan leenahay inaan casrigan aan nasiibku u yeelno inaan ku noolaano oo 21st century ah ama inaan miyiga ku noqono oo tuulooyinkii la iska joogo oo aan loo baahnayn dawlad marka kullay waa ogahay inaan laga tageerin magaalooyinkan qurqurxoon iyo magaalo weyn sida xamar oo kale ah marka waxaa habboon in dhaqankaas casr jaahiliga ah in laga tago si aan caalamka ula jaan qaadno oo aan ula shaqaysano oo aan ula dhaqanno marka khasbiyan waxa ah oo aan hubaa 20kii sano oo hadda la soo dhaafay in aan wax badan ka baranay oo aan ogaanay inuusan shaqaynin maxaa yeelay meel uu ku istaagi karo lama yaqaano meel uu ku dhamaadana lama yaqaano marka qofkii aan wax ka baran marka 21 sano hadda la soo dhaafay haddee waa waxaan ku tilmaami karna ma naqaano welina waa jiraan dad weli caadifadii usii haysa oo sii raba inay isticmaalaan laakiin meeshii ay ku isticmaali lahaayeen ma joogaan daawadeedu haddaan helnay haddaad nagu taageertaan waa tayo waxaa daliil ah oo aan hadalkaasi ku xaqiijinayaa haddaad maqashaan qabyaalad waa cadaalad darro haddaad aragtaan cadaalad darro wax shaqayn kara ma laha marka taasaa waxay keentay inaan fakarno aan raahno tayo aan uga dhigno guddoomiye qof macnaha beelaha la yiraahdo 0.5 ka oo aniga aan ku magacaabo beesha shanaad oo waliba dumar ah waliba si aan u muujino in loo baahan yahay in laga gudbo cadaalad darradaas waxaan iri marka tayo waqtiga hadda lagu jiro ilaa wax walba waqti leeyihiin waqtiga lagu jiro hadda Soomaaliya ay ku jirto waa waqti aad iyo aad u xun ninkii walaalkay Sadiq hadal fiican buu sheegay oo runtii dadka encourage gareynaya oo rajo gelinaya markuu ku dhex wareegay magaalada dhexdeeda laakiin intaasi in ka weyn yaa taala waxa taala Soomaaliya dana badan yaa jira oo laga leeyahay qabyaalad kaliya maaha waa faragelin oo ah international kuna
ma wada socdaan wadan walba wuxuu ka leeyahay Soomaaliya dana gaar ah haddaan la helin marka dawladdii tayo oo fahmi lahayd si ay ula jaan qaadi lahayd dawladahaas caalamka oo danaha badan ka leh waxay noqonaysaa adiga in laga danaysto marka Soomaaliya waa meel fiican waa strategic waa xaqiiq waxay leedahay meesha ay ku taalo waxa maray ilaa 50,000 oo doomo waaweyn sanadkii intaas wuxuu u baahan yahay meel ay ku hakadaan resort ama meel tourism haddii Soomaaliya nabad tahayna runtii tourismkaas yaa wax walba ka badanba laakiin haddii Soomaaliya istaagto oo tourism ay hesho dawlado kale yaa xaaladooda tourismka dib galaya Soomaaliya waxa la yiraahdaa oo xaqiiqo ah waxay leedahay khayraad aad u fara badan oo naga badan aniga maraan tagay wadankan Imaaraadka aan la kulmay dad mas'uuliyiin ah waxay yiraahdeen study la sameeyay ama research la sameeyay Soomaaliya khayraadka badda waxa ka soo gali kara 21 bilyan oo dollar sanadkii 21 bilyan waa badda kaliya bas lama gaarin xoolihii beerihii lama gaarin waa badda kaliya intaasna waxa dheer khayraadkii dabiiciga ahaa oo hadda Soomaaliya lagu soo wado maxaan ku raadaa lagu soo hunguriyeenayo oo ah shidaalkii iyo macdintii kale marka wadankeenu maba ahaba wadan inuu noqdo fakhri ah ama meel lagu dagaalayo oo kulli qof walba uu ciirsanayo inuu noqdo madaxweyne macnaheedu waxay tahay haddii la helo nidaam hal mar u yimaado ninkii waalkeena halkan taagnaa ee generaalka ahaa waa yiri dhibaatadii la maray 20kii iyo 1 sano wax badan iyana bartay waxaasina bartayna waa waxyaabihii wadamada Yurub hadda meeshii taagin gaarsiiyay dibku wax xun ma dad badan waa naga dhinteen Allah u naxariisto oo bilaa macnaha u dhintay dad badan waa dhibaatoonayaan hadda dhalinyaro badan waxay nooga jiraan xabsida nooga jiraan hooyooyin badan dhibaatooyin badan yaa ku haysta dalkan oo guriyihii ka soo bixi laayeen sida hooyaday oo kale samarkana eeyahay ka cararaan winter kana barafka ku faan marka iyo islaanta soo dogtayda sidoo kale maanta aan lahaa soco eeyahaas ka baqdaa ilmihiina waa aragtaan yarka dhalinyarada meeshan taagnaa qeyrada ka muuqatay iyo Soomaalinimada ku jirtay laakiin wuxuu door biday inuu af Ingiriis ku hadlo haddii wadankiisa sanad walba la geyn lahaa uu caana gel soo cabi lahaa saas ma ahaadeen dhalinyarada in la geeyo dalkii qofkii laga yaabo inuu jid qaloocan ku socdo dalkii la soo baro la soo tuso uu arko wax ka daran ilmahan cuntada diidan oo aan cuntada cunayn inay soo arkaan dad gaajo la dhimanaya oo u maleeya maxaan ku raahdaa inaysan cuntada dhamaanayn intaasoo dhan runtii haddaan la helin dawlad wanaagsan ama dawlad dadkeeda iyo shacabkeeda u danaynaysa haddaan la helin Soomaaliya waa la kala qaybsanaya waqtiga haysatana Soomaaliya waa waqti yar waxaa jira waxyaabo badan oo aan public ka sheegi karin aan private ahayn oo private kaliya laga sheegi karo laakiin Soomaaliya waxay haystaa waqti kooban nin diblomaasiga wuxuu ugu yiri Soomaaliya wadamada ay degan yihiin dariska ah waa dadka ugu dhaqaalaha badan waa dadka ugu firfircoon waa Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti xoolo waxay haysteen meelaha galiyeen baaca mushtarka kala socda iyo dhaqaalaha kala socda Soomaaliya iyo maamusha ilaa xitaa Uganda iyo Southern Sudan Rwanda ilaa Congo South Africa
wuxuu ugu yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay dawlad maaha waxay u baahan tahay nabadgelyo bas marka cidii nabadgelyo siisa Soomaaliya hadii nabadgelyo hesho ama ha ka hesho dawladahaas iyagoo ku hoos jira laakiin wuxuu u baahan in la kala celiyo iyaga dhaxdooda oo la kala badbaadiyo marka si uu fiirsid waa run annaga u baahan in la kala badbaadiyo maxaa yeelay ciladan hayso waa qabyaalad maxaa yeelay qabiil walba wuxuu rabaa sidii casru jaahiligi inuu muujiyo qabiilka kale inuu ka xoog badan yahay ma jirto aqli ah war aan wada noolaan dad waalaan waa isdhalnay waa wada degnaa wax noo kala soocan ma laha aan maxaan ku raahdaa aan wada noolaan ma jirto waa in cid kale ka xoog badiso markaas ninkaasi iyo dadka lamid waxay leeyihiin war dadkan aan kala celino see u kala celinaa marka si annaga aan raali ka ahayn iyo noo kala celin doonaan marka haddaan annaga garan runtii waxa noo habboon iyo Soomaalida haddaynan garan waxay noo kala celinayaan sida hadda ay leeyihiin meelaha joogaan ba dhaqaale ku haystaan dhibaatana ma qabaan macnaheedu waa fahamteen Soomaa ma rabo inaan sii galo waxa loo baahan yahay marka in la raadiyo dad tayo leh marka dadkeena tayada leh in la raadiyo 30 sano yaa wadankan wax la soo baraayay 20 sano aan soo qaxnayna ilmaheeni intay ku barteen waxay baran kareen dadkaas tayada leh waa engineerskii waa dhakhaatiirtii waa ciidamadii waa nursingkii waa veterinarieskii fanaaniintii sportigii hooyooyinkii macallimiintii kulli waa halkaana lagu dhayn maskaxdii oo dhan halkaanay taala ama qurbaha la joogaa marka waxay noqdeen dad meelaha fadhiya intooda badan intaasna ka hadlaaya sidii dalka loo dhibaateen lahaa oo loo support gareyn lahaa ama loo maalgelin lahaa nin dhibaato wada oo aan ku magacaawno warlord oo lacag loogu diro tayadii waa haynaa waxa loo baahan yahay inaad nagala shaqeysaan oo anagu aan ku shaqeynaa haddaan nahay xisbiga tayo inaan isku soo aruurino dadkaas wanaagsan ee Soomaaliyeed oo idinka aad ka mid tihiin haddii maskaxdaas aan wada geeyno dalkii oo aan aragnay dalkan sida uu u shaqeynayo oo ugu horeyso in laga soo horjeesto ama la dagaalamo musuqmaasuqa ilaa waxa Afrika qarribay ama wadankeena qarribay waa musuqmaasuq ninka kale walaalkiis ka naf jeclaysanaya oo shilinku la qaybsan lahaa walaalkiis ee mas'uulka looga dhigay oo aaminka ahaa jeebka gashanaya isaga wuxuusan ogeyn qofkaasi xoolahaas xaaraan inay yihiin uusan ku najaxin ilma Soomaaliyeed oo isaga mas'uul looga dhigay intuu ka soo qaado ilmihiisa siinay xaaraanta maxay keenaysaa marka gurigaas inuu burburo marka carruurtaas inaysan faa'iido yeelan laba maalmood wax waa la cunay laakiin mustaqbalkii ilaa qofku ma noole kaliya maanta inuu qadeeyo qofku wuxuu nool yahay carruurtiisii inay helaan dal ilmaha awaahu yihiin inay leeyihiin dal in looga tago dhaxalkaas ma aha shil lacag ma qofku lacagtu waa dhamaanaysa laakiin qofka markii looga tago meel uu ku noolaado uu nolol ka samaysto dhaxalkaas laakiin markii aad xaalufiso wixii meeshii yaalay oo laakiin aad xaqiijiso maalintaas inay ilmaha qada helaan laakiin ilmo kale ay gaajaysan yihiin mustaqbalkii Soomaaliya oo hadda khaasatan 20 sano hadda 21 sano marayno waxay nagu soo gaarsiisay taas nagu soo gaarsiisay taas waxay keentay inaan raahno annagoo yeeli karnay inaan guryaheenu ku soo noqonno oo aan carruurteena u nimaano waxay keentay inaan raahno wixii aad soo aragteen oo dhibka badnaa iyo waliba dadka dibadaha jooga naftigooda oo dhibka haysta oo maxaa ka mid ah dhibkaas carruurtii qaar badan waa xirxiran yihiin
maxaa yeelay familkii waa kala jabay oo waxa ku dhacay culture shock lama yaqaano yaa gurigaas maamula marka waxaa naga go'an dadkaas ee Soomaaliyeed ee meel kasta jooga inaan isku soo aruurino oo aan u yeelno hooy bacdama aan ka faa'iideysanayno dadkii waddanka lahaa waxaa ku xigtay tanaasulku waa wax qaraar waa wax aad iyo aad u dhib badan oo cara leh oo cadiiqsi leh oo weliba dhaqanka Soomaaliyeed aan ku jirin dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay kii adkaada ha qaato wixii lamana kala adkaanayo dhibku waa iska socdaa marka tanaasulku waa wax dhib badan in anagu intii teamkeena ahayd aan isku tanaasulno marka dhexdeena ahay haddii arrin timaado in dhexdeennii aan isu tanaasulno ilaa markii dambe ee gaarsiisay inaan xukunkayga uga soo tagnaba tanaasul taasna waa qayb ka mid ah gogol dhigga ururkeena oo aan horumarinayno tayo in la helo dadkii wanaagsanaa oo dhinac walba leh qof walba khibradiisii iyo kartidiisii lagu tixgeliyo maaha qabiilkiisa maaha labo in tala wadaag la noqdo oo hal maskax kaliya aysan talin saddex in la isu tanaasulo intaas haddii la isla garto أنا waxaan qabaa Soomaaliya inay hagaagayso oo dhibka hadda haysta oo maxaan ku raahdaa ummadeena la baabaaday inay istaagayso marka maxaa la idinkaga baahan yahay idinka marka haddaad tihiin reer Toronto iyo guud ahaan qurba joogga marka tayo waxa wax u qabanaysaan idinka marka naftiin wax u qabataan maxaa yeelay nintiisa meel gaarsiiyay ama qof tiisa meel u yeelay yaan nin dhihin dumarku wax weyn bay ka yihiin tayo marka qof tiisa meel tiisa daryeelay yaa mid kale ku dari kara idinka waxaan ka rabnaa marka wax walba waxay ka bilowdaan qoys hooyo aabe ka bilowdaan hooyo aabe waxa u dhaxay caruur waxa loo shaqeynayo waa caruurta inay helaan mustaqbal caruurtaasi waxay ku badbaadi karaan waalidkii oo isticmaala theory-gan tayo macnaha inay wax bartaan iyaga naftigooda oo ay shaqaystaan oo ay ka lahaan oo xalal qodata ay noqdaan aysan ku mashquulin waxaanan ahayn wax familku wax u kordhinayo waa tayo in hooyadii aabihii ay noqdaan tala wadaag oo san odayga oran aniga oday meeshan ka ah ee yaahay meeshan fariiso iyo in ay ku daraan tanaasul oo islaantu ay tanaasusho inta badanba idinka naga fiicane oo odayga dharkiisana banaanka loo dhigin haddii intaas la helo ubadkaasi waa badbaadayaan oo waxa loo shaqeynayo ama loo dhimanayo inaysan ahayn labada qof wax iyaga dan u ah ee tahay wax ka weyn oo caruurtii ah mustaqbalkooda taas haddii isla fahmaan ay yiraahdaan adiga wax kasta aan isku haysan caruurtan ka hormarino dhibaato imaan mayso markii familkaas uu xoog leeyahay uu strong yahay ilmihiina iskoolkoodii iyo howlahoodii ay ku jiraan oo familkaas uu ka dhaxeeyo aamin ama trust uu ka dhaxeeyo in run la isu sheego uu ka dhaxeeyo in xaaraanta laga dheeraado familkaas waa hagaagaya waana aflaxaya familkaas markuu aflaxo wuxuu wax u taraya community marka ilaa family burburay community waxa uma qaban karo si wadankan loogu noolaado ama qurbaha loogu noolaadana shakhsi wax ma taro waxa wax tara organization wuxuu ka yimaadaa community gaasna waa in la helo tayo
ma aha nin remiyo ordaya oo geeli ka yimid oo waxba aan kala garanayn inuu yiraahdo sidii geeli iyo baadiyaha wax ku xukumeena meeshan maya in la helo dadkii aqoon-yahanada ahaa aqligana ilaahay ugu daray in la yiraahdo ila wadan kale la jooga baadiyaha lama joogay community marka dadka ugu fiican laga soo xulo marka maamulka iyo leadershipkiina ay wareegta noqoto maxaa laga hadlayaa marka community muxuu ka hadlayaa community wuxuu ka hadlayaa horta koow sidii wadankan loogu badbaadi lahaa carruurta sidii loo badbaadin lahaa siyaasadda sidii wadankan looga qayb gali lahaa community uu noqon lahaa community macna leh oo loo ixtiraamo oo xushmad ku leh dadka uu ku dhex nool yahay community inuu iscaawiyo haddii meel shaqo ka banaanaato hebel oo meeshaan shaqo ka banaan soo gal kaasna mid kale uu caawiyo oo macnaha information waa power information la share gareeyo laakiin nin gurigiisa burbursay qof kale wax ma tari karo qofka markuu gurigiisa dhisan yahay caruurtiisa ay fiican yihiin subaxdii gurigiisa uu wanaag uga soo baxayo islaanta ay leedahay khayr Allah ku siiyo nabad ku soo noqo iyo ninkaas community wax u tari karaa marka caruurtiina waa badbaadayaan siyaasiyiintii dalkaana waa ku soo istaagayaan oo ku ixtiraan maxaa yeelay siyaasigu wuxuu fiirinayaa saa sophisticated u tahay haddaa aragto individual waa primitive way haddii aad arkaan inaad organize tahay dadka ku hadlaya yihiin dad wax fahmaya wax garanaya oo dadkaasna hadda isbedel uu jiro uusan qofkii meesha taagnayn uusan meesha macaansan oo isbedel uu socdo sanad 6 biloodba dad cusub ay imaanayaan oo qofkii wanaag wada oo la arkayo inuu wax wanaagsan wado xogaa loo sii daayo inuu meeshii si ay hawshi u miro dhasho qofkii la arko xogaa inuu qaloocan yahay ama lazy ay dadku isku mid ma aha la yiraahdo adeer waa daashay bal hal ugu bedelo halaga wareejiyo baash waxa la gaarayaa markaas markii community-gi uu noocaas yahay uu wada shaqeyn leeyahay dalkan in wax laga qabsado dalkii hooyana wax loo qabto oo campaign meeshan laga galo oo la helo dad musharaxiin ah sida walaashay Khadiijo kale haddii community haysto Maxamed Daahiro kale haddii community haysto iyo Dr. Qaasim haddii community haysto uu nidaamsan yahay waxa la helayaa dad public officials ah haddii la helo dad public officials ah markaas way marka la ka dambeynaya marka oo leeyahay community-gan waxay soo saari karaan council women ama councilman waxay soo saari karaan maxaan ku radaa member of parliament haddii aan community-gan waxay u baahan yihiin aan loo qaban codkooda lama helayo waxaan idin sheegayaa 1500 soo halkan ma fadhido caaw 1500 waxaan filayaa inay citizen yihiin ninkii councilman u ordaya area aad degan tihiin ama qofkii Soomaaliga waa helaya ninka kale ajnabiga ah markuu og yahay inuu codkiina uu ku xisaabtami karo wax alla waxa rabtaan halkaas la idin saaraya hal midal yar baan idin sheegaya kaliya waxay ka dhacday magaaladan la yiraahdo San Diego San Jose community Spanish asu tagay guryo waaweyn waxa la dajiyay waa cusbaayeen guryo dawladeed aad u qurxoon waa isnadaamiyeen markay isnadaamiyeen iyo waxay yiraahdeen guryahan dawladda garaan hanagu siiso dawladdu waxay tiri marka waaye garaan waa la ku siinayaa waa la idin deeminayaa qaarna garaan la ku siinayaa guriyihii awal waxay ahaayeen guryo dawladeed guryo waxay noqdeen dadkii ay leeyihiin macnaheedu waxay tahay wadankan Canada Mareykanka ma waa ka sii fiican yahay oo social system koodu waa ka sii fiican yahay markii la yiraahdo community-gan hala sii guryaha oo qof walba intuu bixin jiray haska bixiyo bil walba adaan iska leh guriyaada iska leh oo meel aad uga guuraysid ma laha taas waxay ku timaadaa markii la helo dad tayo leh oo Soomaali u naxaya oo dana shakhsi aan lahayn
oo dadkooda raba inay badbaadiyaan oo carruurtooda raba inay wax u qabtaan islaamahooda iyo kooda liita iyo kulli raba inay gacan qabtaan taasna waxay ku imaanaysaa midnimo in la helo iyo isfaham meeshan caqli loo baahan yahay isfahamkan wuxuu ku yimaadaa dadku markay wada hadlaan markii la wada hadlo oo qof walba uu soo jeediyo wuxuu rabo oo dadkii maxaan ku raahdaa dhexdhexaadinaya meesha fadhiyaan waa anigu waxa ka hadlaya communities haysta hal waxa baa idin sheegaya aniga oo aan la yaabay waxaan tagay London Soomaali waxaa degan ilaa gaaraysa 400,000 community-da ugu yar waa reer Baraawo community waa 60 family waxay leeyihiin center intaan la eg iyo dabaqiisa kale iyo barxad kale oo parking ah centerkaas iyaga iskale iyaga gatay waa 60 family kaliya markaas Soomaalidii kale meesha carruurtooda keensadaan sanadkiiba ilaa 200 qof yaa quraanka ku dhameys meesha xafladada hadii la rabo aroosyo haday tahay meesha lagu dhigtaa ciyaalkana banaankii waxay ku ciyaaraan basketball intaan waa ka weynta wallahi qolkan waa ka weynta waa 60 family oo kaliya bas ka waran marka 60 kaas isku duuban yihiin 400,000 oo qof oo Soomaali ah haday isku duubnaan lahaayeen ka waran Soomaali sida tahay ma ahaateen idinka 150 halkan aad igu sheegteen runtii waxa idinka fiican 1600 1700 oo isku duuban maxay dadku hadaysan organized ahayn macna ma laha xisaabtu kuma jirto xisaabtu lagu ma daro 1500 oo organized ah yaa intaas effective ka ah marka haddaad doonaysaan dalkeena inaan wax u qabanno oo aan cadawga ka dhacsanno oo aan ka cishano annaga horta waa inaan wax istarno la fahan waa inaan wax tarno qoftiisa daryeelay oo tiisa wax taray yaa mid kale ku daraya marka mid kale community-ga markuu saas ku duuban yahay maxaa imaanaysa waxa imaanaysa in ganacsatada la kobciyo oo dadku fahmaan dhaqaaluhu in la isku celiyo anigu ma arag nin Chinese ah oo makhaayad Soomaali wax ka cunay ma arag laakiin waxaan arkaysaa kuwa Soomaali badan oo Chinese wax ka cunay dukaamo Chinese ah furan waxaad arkaysaa Soomaali badan oo ka adeeganaya bakaarahana waa firaaqo way ma arkaysaa nin Chinese oo bakaaraha imaanaya ka adeeganaya waxaad arkaysaa dukaamihii Afghanistaniinta assalaamu alaykum kugu salaamay marka soo gashid oo saas looga buuxo dukaamihii Soomaalida waa firaaqo maanta haday qof u dhinto ninkaas Afghanistanka looma tagay maxay community-giisu dhaqaalihi aad siisay community-giisu geenaya ama dalkiisu ku dhisanaya laakiin haddii community-gu uu nidaamsan yahay shilin ma geenaysaan dukaan kale oo ajnabi leeyahay
magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa si heer sare ah lagu soo dhaweeyay xogayaha guud ee xisbiga Tayo ahna ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaasho oo maalmahan booqashooyin ku kala bixinaya caalamka intiisa badan ra'iisul wasaaraha ayaa lagu xasuustaa waxqabad dhab ah kana hana qaada dalka Soomaaliya waliba asagoo marihii uu ka abuuray dalka Soomaaliya maanta la higsanayo mudana Farmaajo xasuusta gaarka uu leeyahay ra'iisul wasaaraha lagu xasuusan karo ayaa waxay tahay inuu yahay qofkii ugu horeeyay ee ebed inta la xasuusan yahay shacbiga Soomaaliyeed cod kor loogu qaaday ku sheegay in ay raali ka yihiin haddaba ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu u taagan yahay inuu yahay musharaxa u taagan hoggaanka dalka Soomaaliya inuu ka noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuuna la tashanayaa amba door biday inuu raali geliyo dadka Soomaaliyeed amba shacbiga Soomaaliyeed ee ku sugan Toronto iyo nawaaxigeeda kuwaasoo ay tahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed kuwa ay tahay talada kama dambaysta leh in la doorto qofka amba la diidi karo haddaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qaban doono haddii loo doorto hoggaanka ugu sarreeya ee ah jagada madaxweynenimada dalka Soomaaliya waxa uu qaban doono amba uu ka ballan qaadayo shacbiga Soomaaliyeed hortiisa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim horta anigu wali ma shaacin in aan musharaxahay laakiin kollayba markii waqtigeeda ay timaado waxaa la horgeynayaa golahaasoo ka qaadan doona go'aan ama kama dambaysa cidda Tayo u noqon doonta musharax ugana qaybgeli doonta doorashada soo socota hadduu eebba yidhaahdo mudane Farmaajo waxaad ka mid tahay dadka aqoon-yahanada isla markaana ku sugnaa ee waddanka dibaddiisa doorbida inuu gudaha dalka Soomaaliya tago isla markaana waxa lagu xasuusan karaa waxqabadkaaga in dad Soomaaliyeed ay isu taagaan in ay raali ka yihiin isla markaana xukuumaddaadii ay taagnaato sida aan filayna qof haddii uu ku dhawaaqo xisbi walla mahuraan inuu u taagan yahay inuu mustaqbalka isku soo sharaxo jagada madaxweynenimada dalka Soomaaliya taasoo ah hoggaanka ugu sarreeya waxaad ku dhawaaqday oo kale in 4.5 amba 5 beelood wax loo qaybsan doono haddii ay xukuumaddaada Tayo ay guulaysato amba isla markaana aad noqoto madaxweyne adigoo soo koobaya su'aalahaas aan ku weydiiyey maxay kula tahay horta waa run oo 4.5 ma aha wax xaq ah maaha inkastoo hore loo yiri waa xal haddii xal see lagu helaa haddii aan xaqii laga abbaarin wixii xaqdarrada ah annagu waxaan abbaaraynaa oo aan horumarinaynaa in Soomaali wax ku qaybsato 5 beelood haddii xisbi uu noqdo minority ama majority waa wax la fahmi karo laakiin cidna inaanu lagu riixin iyadoon la istirin in la yiraahdo waxaad tihiin minority xisbigeennu kollayba go'aankiisu wuxuu qaadan doonaa bilaha soo socda meesha uu ka istaagi doono doorashada soo socota laakiin waxaan kuu sheegayaa kollayba waxay ahaataba annagu waa naga go'an tahay in aan talada Soomaaliya aan ka qaadanno qaybta nooga soo hagaagta kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya waxqabadkiisa lagu xasuusto inuu isla markaana shaqsigii ugu horeeyay muddo 20 sano ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan militaarka inuu siiyay mushaaraadkii ugu horeeyay isla markaana lagu mahadiyay in xukuumaddiisa ay soo kordhisay isla markaana 100 maalmood u qabatay nabadgelyada dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadweynaha Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada isla markaana habeenka caawa ay si aad ugu soo dhaweyn halkan dadweyne gaaray ilaa 1500 oo Soomaali ah isla markaana degan gobolka Ontario Mahad Carab oo Ali telefishinka Universal Toronto